بسم الله الرحمن الرحيم صاحبيال كسو دوادا جانالكا محداي وين waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka. Jilaa Yahuudi ah oo ku nool dalka Mareykanka ayaa cambaariyay xasuuqa Israa'iil ay ka wado marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Hannah Bender ayaa muujisay cabsida ah xasuuqa ay dowladda Israa'iil ku hayso in ka badan 65,000 oo qof oo ku nool marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. iyadoo aqbashay abaalmarin lagu guddoonsiiyey matalaadda LGBT ee Los Angeles. hadda waa matalaadda LGBT ee Los Angeles. fahmaynaa waa rajaynaynaa in qof walba inaga mid uu yaqaano waxa loola jeedo LGBT. waa qof aan islaam ahayn haddana waxa ay aad ula xanuunsanaysaa weliba waxay u dhalatay Israa'iil waxay aad ula xanuunsanaysaa dhibaatada lagu hayo dadka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. halkan ayaa ugu duceynaynaa reer Falastiin waxaan halkan ka leenahay inna Allaha maca saabiriin. waxay leedahay waan ka xishoonayaa oo aad baan uga carooday in lacagaha laga qaado dadka ku nool dalka Mareykanka ee canshuuraha ah lagu maalgeliyo in lagu baabiyo dad masaakiin ah oo ku nool marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. waxa kale oo ay leedahay Bender oo ay khudbadeeda aqbalaada sabtidii waxay ku sheegtay waan ogahay in cambaareynteeda duqeynta Israa'iil ee marinka Gaza dhulka reer Falastiin ay ka wado aysan ahayn wax aan ka bartay dugsiga aan wax ka bartay laakiin waa dhibaato taagan oo u baahan in laga hadlo dadkana lagu baraarujiyo. waxay sidoo kale hadalkeeda ku dartay Donald Trump iyo dowladda Israa'iil waxay soo jeediyeen in Falastiiniyiinta la barakiciyo oo ay qaataan dalal kale taasina ma aha wax macquul ah. waxaan rajaynaynaa in arrinkaasi ay dib u eegi doonaan isla markaana ay dadkaasi halkooda ku nabadgelin doonaan. waxay hadalkeeda sii raacinaysaa haddii aynu nahay Yahuudda si fiican ayaanu ognahay xanuunka ay leedahay inaan ka tagno waddankeenna ama aan wajahno dhimasho gaar ah. waa dhibaatada lagu hayo dadka reer Falastiin. marka waxaan codsanaynaa in laga joojiyo dhibaatada lagu hayo reer Falastiin sidoo kale ay dhulkoodana loo nabadgeliyaa. dhinaca kale gudaha dalka Israa'iil dibadbaxayaal careysan ayaa waxay dhaleeceeyeen cadaadiska aan horay loo arag ee uu wado Netanyahu ee ka dhanka ah dimuqraadiyadda dadka ku nool Israa'iil. sida ay soo sheegeen waxay leeyihiin daraasiin Israa'iiliyiin ah ayaa isugu soo baxay meel u dhow guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil habeennimadii Isniinta si ay uga mudaaharaadaan. waxay ka mudaaharadayaan maxay tahay dhibaatada haysata maxay ka qaylinayaan waad wada dhageysan doontaan. waxay leeyihiin isku daygii uu ku doonayay in uu shaqada ka ceyriyo madaxa amniga gudaha dalkaasi Ronen Bar iyo in uu dalbado soo celinta maxaabiista lagu hayo marinka Gaza. dalabka lagu doonayo in lagu eriyo Bar ayaa waxaa hor istaagay maxkamadda sare ee Israa'iil maalintii Jimcaha. taasoo keentay in Netanyahu iyo maamulkiisaba ay bilowdo dacwadda shaqada looga ceyriyay xeer ilaaliyaha guud ee Israa'iil. waa dacwadda shaqada looga ceyriyay xeer ilaaliyaha guud ee Israa'iil. Tamara Hess oo ah 60 jir macallimad ah ayaa waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay ixtiraam la'aanta xukuumadda Netanyahu ee sharciga dalkaas. waxay leedahay waxan wax macquul ma wax yaani oo ma aragtaahay oo horay loo arkayna ma marka Netanyahu iyo xukuumaddiisa waxay doonaan iska sameeyaan waa dad yaani sharciga ka weyn. waxay sii raacaysaa hadalkeeda waa arrin aad u khusaysa waa wax aan horay loo arag in dowladdu aysan dhageysan sharciga. waa waxaan weli hore loo arag oo ku cusub Israa'iil. waxay leedahay Israa'iil ama maamulka rasmiga ah ee ka jira Israa'iil waxay sheegaysaa inaysan dhageysan doonin garsoorayaasha wayna iska indhatirayaan sharciga. waxay sidoo kale leedahay waxayna samayn karaan sharci iyaga u gaar ah oo yacni waa
howlkada ayagu gaar ay samaysan karaan intay ka gudbaan waxaan meesha yaallo ay waxay samaysan karaan sharci ayagu gaar sharcigana way ka sarreeyaan ayay hadalkeeda sii raacisay iyadoo u warantay wakaaladda wararka ee AFP guudaan dhegeystayaal barnaamijkeennii maanta inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan rajaynaynaa in aan dhacdooyinka ugu dambeeyey ee caalamkaba sidaan iyo si kale oo ka duwan idinkula soo wadaagi doono oo ka qurux badan رمضان مبارك